jaaliyada Soomaaliland ee ku dhaqan wadankaasi Jarmalka ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen xilliga ay qabanayaan shirweynaha afraad ee ay yeeshaan waxaana warkaasi wadanka Jarmalka nooga soo diray wariyaha MMTV ayaan le mudakar munaasabadan oo lagu shaacinayay shirweynaha afraad ee jaaliyada guud ee Soomaaliland ee dalka Jarmalka waxaana lagu qabtay magaalada Luqshaafin ee dalka Jarmalka afayeenka jaaliyada Soomaaliland ee dalka Jarmalka Maxamed Deeq Ciise Maxamed Case oo ay weheliyaan xubno kamida guddiga qabanqaabada shirweynaha jaaliyada Soomaaliland ee dalka Jarmalka ayaa warbaahinta kula hadlay dalkan Jarmalka waxaanay ka warrameen muhiimadda uu kulankani u leeyahay ugu horreeyna waxa halkaasi ka hadlay afayeenka jaaliyada guud ee Soomaaliland ee dalka Jarmalka Maxamed Deeq Ciise Maxamed Case ayaa ka warramay fariin u diray shacabka Soomaaliland ee ku dhaqan dalkan Jarmalka in ay ka soo qayb galaan shirweynaha afraad ee jaaliyada guud ee Soomaaliland oo dhawaan ka qabsoomi doono magaalada Bayern Munchen ee dalka Jarmalka isagoona sheegay in la dooran doono hoggaan cusub oo matali doona jaaliyada guud ee Soomaaliland ee dalka Jarmalka anigu waa afayeenka guud ee jaaliyada reer Soomaaliland waxaan salaamayaa ummadda jamhuuriyadda barakeysan meel kasta joogto gaar ahaan dadweynaha ku dhaqan dalka Jarmalka inta marka laga yimaado waxaan hambalyeeynaa gudoomiye Muna gudoomiye Bon oo khilaaf in badan soo jiitamay iyadoo garatay inay maanta si kalsooni iyo qurux iyo sharaf leh u soo afjarto aad iyo aad baan ugu hambalyeeynaa waxaan doonayaa inaan ogeysiyo dhammaan gobolada 16 gobol jaaliyada reer Soomaaliland meel kasta joogaan in la qaban doono shirweynihii guud ee jaaliyada sanadlaha ahaa oo ay jaaliyadan hadda joogta xilkii ka dhamaaday oo waqtigeedina uu dhamaaday sidii aynu qaban jirnay shirkii sanadlaha ahaa ee Soomaaliland jaaliyadeeda gudoomiyaheeda lagu dooran jiray xubnihii la shaqeyn lahaa sidaa darteed waxaan ogeysiinayaa dhammaan jaaliyada reer Soomaaliland meel kasta joogaan inaan ay gaadhay xilligii aan u diyaar garoobinahay shirweynaha jaaliyada guud ee reer Soomaaliland oo ka dhici doona gobolka Bayern Munchen caasimadiisa magaalada Munich oo ay magan gelinayaan jaaliyada reer Soomaaliland ee ku dhaqan Bayern Munchen magaalada caasimada u ah sida daraadeed waxaan ku wargelinayaa dhammaan jaaliyadaha 16 gobolba inay u diyaar garoobaan xilligii la qaban lahaa ama macnaheedu loo diyaar garoobo September bilowgeeda 10 casho ugu horeeyay inuu dhici doono shirkii guud ayaan maanta ogeysiinayaa waxa kale aan ku darayaa oo aan ogeysiinayaa mas'uuliyiinta jaaliyada guud inaan ahay musharax u taagan jagada gudoomiyenimada jaaliyada guud inta wixii ka dambeeya waxaan jecelahay in u diyaar garoodaan oo aynu dhamaanteen wada diyaar garoono sidii loo qayb gali lahaa shirka jaaliyada guud ee reer Soomaaliland waxaan soo dhaweynayaa saawa fayeen ku dhawaatay shirweynaha dhici doona bisha September insha Allah si khayr qabto ku dhamaan doontaa waana soo dhaweynaya waana ku faraxsanahay ilaahay baa mahadle magacaygu Cabdilistiin waxaan soo dhaweynayaa in jaaliyad Soomaaliland oo ballaaran oo guud la yeesho waxaan soo dhaweynayaa mar labaad kulanka ama barkulanka ama meesha lagu kulmeeyo ama kulanka ballaaran ee jaaliyadu leedahay qabanqaabihiisa ku jirno oo la qaban doono insha Allah laakiin bilowga bisha September ee nagu soo foodale waxaan soo dhaweynayaa dhammaan doonaan hello jaaliyad aan qoqob jirin midaysan shirweynaha jaaliyada reer Soomaaliland ee ka dhici doona magaalada Munchen gobolka Bayern waxaan jecelahay in dadweynaha ay ka soo wada qayb galaan oo si hufnaan leh oo bila turxaana oo aan ku yeelano hal jaaliyadood hal community oo Soomaaliland oo dhan ay ka kooban tahay oo aanan xisbi ahayn aan kala qoqobnaan jirin oo lagu wada garab taagan yahay marka waan ku faraxsanahay waan soo dhaweynaynaa waxaan rajaynaynaa insha Allah inay bulshada reer Soomaaliland jamhuuriyadda barakeysan ay ka soo wada qayb galaan la mudakar MMTV Jarmalka